wanaagsan oo wacan dhamaantiin baa aniguna wali baxbarqiya waxaan idin wadaa taariikhtii qadiimiga ahayd ee Soomaaliya. Dhulka Soomaaliya waxa uu ahaa mid ay dadku deganayeen in ka badan 10,000 oo sanadood ciise hortii. Waqtigaasi oo dadku intooda badan ay ahaayeen reer guura, dhaqda xoolaha iyo tabaca beeraha. waxaa jirtay xadaarad tartiib isku tiraysay, waxaana la sheegay in ay lahaayeen xiriidho ganacsi oo xoolaha iyo dhirta iyo ilaqaad ku salaysnaa maamulka iyo horumarinta dalka. Haddaba bilowgii xadaarada Soomaaliyeed waxaa soo shaacbaxay waqtiyadii boqortooyooyin Soomaali ah, kuwaasi oo ku salaysnaa xadaaradihii cusbaa ee deegaanada sida sandaladii Adal Empire, sandaladii Geledi, sandaladii Warsangeli iyo sandaladii Majeerteeniya. waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu awoodda badnaa ee waqtiyadii hore ka arrimin jiray deegaanada Soomaalida. Dhammaan boqortooyinkani waxay horumar ka sameeyeen xidhiidhka ganacsiga iyo siyaasadda ee mandaqada Geeska Afrika, iyaga oo la lahaa dunida inteeda kale xidhiidh qoto dheer. qarnigii 9aad, 10aad, 11aad, 12aad, 13aad, 14aad, 15aad ilaa qarnigii 16aad. Haddaba badmareenadii hore ee Soomaalidu waa taariikhda dadka baxaariga ah ee u dhashay ama asal ahaan ka soo jeeda waddanka iyo dadka Soomaalida. qarnigii 15aad sida lagu sheegay buugaag badan oo taariikhi ah, waxay ahaayeen waqtiyo hore kuwa ku safra badaha waaweyn ee caalamka, iyaga oo u socdaalaya sababo kala duwan sida ganacsiga, aqoon raadiska, dalxiiska iyo kuwa kaleba. boqortooyinkii badnaa iyo maamulo ka soo jiray geyiga Soomaalida ayaa waxay dhiseen noocyo badan oo maraakiib, doonyo iyo qalab lagu safraa. dekadihii ay isticmaali jireen waqtiga waxaa ugu caansanayd ama ugu facweynayd dekada Saylac oo lagu qiyaasay inay jirtay in ka badan 3,000 oo sano. waxaa kale oo ka mid ahaa xadaaradii reer Xamarka, ganacsatada reer Muqdisho oo u kala safri jiray Soomaaliya iyo Hindiya waqtigaasi.